السلام عليكم داودياش aan jecel lahay waxaad ku soo dhawaataan qodobada qaranjoog wararkeena waxa ugu waaweyn waxa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan xogtii qaraxii laga fuliyay xarunta maamulka Banaadir iyo qofkii fuliyay ergeyga gaarka ah xogayaha qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa la filayaa inuu socdaal ku yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan muhiim ah iskugu yeeray taliyayaasha laamaha amniga ee u xil saaran sugidda amniga caasimadda iyo su'aalo ka weydiiyay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir warbaahinta kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir uu ahaa mid goobta lagu sii diyaariyay booliiska dowladda federaalka ah Soomaaliya oo diyaarinayo sharci xadgudub ka ah shacabka Soomaaliyeed oo xasaasi ah maamulka Jubbaland oo bilaabay talaabo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa ballanqaad cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab u sameysay dowladda Soomaaliya kadib qaraxii Arbacadii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddoonka golahaasi ka dalbaday in ay baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo eedeynta loo jeediyay dowladda Qatar qodobada wararka caalamkana waxa ugu waaweyn kuleelkii ugu sarreeyay abid ee laga dareemay qaybo ka mid ah qaaradda Yurub Kuuriyada Waqooyi ayaa kantaala tijaabisay shalay iyadoo sheegtay in tallaabadaasi digniin dhab ah loogu dirayo waxay ku tilmaamtay qaabqablayaasha dagaalka ah ee ula jeedo Kuuriyada Koonfureed taa waxay ahaayeen qodobada wararkana ugu door kaloon iminkana u diyaar garooba ayagoo dhameystiran marka la daawadayaasha aan jecel lahay isku soo naqad haboon aan ku horeyno waxa soo baxay warar kala duwan ay ku saabsan xogta qaraxa laga fuliyay xarunta maamulka gobolka Banaadir qofkii ka dambeeyay qaranjoog news ayaa xiriir badan la sameysay saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo baaritaano ka wada wararkii xanuunka badnaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay hayaan warar lagu kalsoon yahay oo ku saabsan qofkii wararkaasi fuliyay wararka aan helayno mas'uuliyiinta amaanka iyo saraakiisha gobolka Banaadir ayaa sheegay 90% baaritaanka la sameeyay ay sheegeen in weerarkaasi ay fulisay qof haween ah oo magaceedii lagu soo koobay Basiiro oo ahayd agaasimaha dadka baahiyada gaarka ah qaba ee gobolka Banaadir isla markaana aragga naafa ka ahayd sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa qaranjoog news u sheegay in ay gabadhaani ay weerarka fulisay waxaana ay soo abaabulay gabar kale oo caawiya u ahayd qofka isqarxiyay oo aragga naafa ka ahayd Basiiro oo markii hore ku shaqayn jirtay guriga hooyooyinka ayaa dhawaanba ka shaqo bilowday maamulka gobolka Banaadir waxaana ahayd qofka kaliya ee aan la baarin albaabka gaarka ahna ka soo gala ee gobolka Banaadir gabadhani ayaa ka soo gali jirtay albaabka weyn ee gaadiidka laga soo geliyo waxayna ay wadatay qof kale oo dumar ah waxaana la sheegay in aanan la baari jirin maadaama aysan soo marin karin goobaha dadka lagu baaro yaalaan qalabka casriga ah ee dadka dib badan ay ka maraan markii ay soo galayaan xaruntaasi baaritaanka saraakiisha ciidamada booliiska ayaa sheegay in ay baarayaan oo ay meesha ka baxsatay gabadhii soo abaabushay wararkaasi oo caawiyada u ahayd qofka aragga la isqarxisay waxyaabaha kale ee qaranjoog news ogaatay waxa ka mid ah in qofka isqarxiyay oo fadhiya kursiga shanaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir oo aan lagu talagelin isla markaana aysan markii hore fadhiisan jirin qofka la raadinayo ayaa xarunta gobolka ka baxsatay ka hor inta uusan qaraxa ka dhicin waxaana la yahay meel ay jaan cirib dhigtay gabadhaani isqarxisay oo aragga naafa ka ahayd isla markaana ahayd agaasimaha dadka baahida gaarka ah qabo ee gobolka Banaadir ayaa markii ay dadka u sheekeynayso waxa ka muuqatay in ay ahayd qof wadani ah balse wajahayso waayo iyo duruufo adag waana sababta keentay in ay dad badan aaminaan ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa la filayaa inuu socdaal ku yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa danjire James Swan iyo wafdi hogaaminayo ayaa waxa la filayaa in magaalada Hargeysa ay soo gaaraan Swan ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doona madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi James ayaa socdaalkiisa ku imaanaya Hargeysa waxa uu noqonayaa safarkii ugu horeeyay ee ku yimaado caasimadda Soomaaliland tan iyo markii
2 bilood ka hor loo magacaabay xilkaasi. Danjire James ayaa waxaa la filayaa in uu culays xoogan ku saaro xukuumadda Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka in ay doorashada Somaliland ugu qabsanto waqtigeedii loogu talagalay. Danjire ayaa sidoo kale waxa uu mas'uuliyiinta Somaliland kala hadli doonaa sidii loo furi lahaa wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo muddo badan hakad ku jiray. James Swan ayaa ka badbaaday qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir kadib markii uu daqiiqado ka hor ka baxay xaruntaasi dowladda hoose ee Xamar kulana shirayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Injineer Abdiraxmaan Yariisow Al-Shabaab ayaa sheegtay in Swan uu ahaa bartilmaameedkaasi qaraxaasi. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan muhiim ah iskugu yeeray taliyayaasha laamaha amniga ee u xilsaaran sugidda amniga caasimadda ayaa su'aalo ka weydiiyay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Xamar. Madaxweynaha ayaa ka dhageystay taliska ciidanka booliiska warbixino gaar ah ku saabsan mas'uuliyadda gaabiskaasi amniga ka dhacay halka ay marayaan baaritaanada ku saabsan qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir maalintii Arbacada. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faray xukuumadda in ay si degdeg ah ula timaado qorshe dhameystiran oo ku aadan hanaanka la dagaalanka dadka sida tooska iyo sida dadbanba u gacansiyo argagixisada Al-Shabaab. suurtagal ma ahan in ay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinayo argagixisada dadkana dhibaateynayo, waxaana la sugayaa xukuumadda in ay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi, ayuu yiri agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya. dhinaca kale guddiga gurmadka caafimaadka oo dhaawacyadii qaraxyadii halignimada ahaa ayaa la wadaagay madaxweynaha xogta xaaladda caafimaadka ee dhaawacyadii iyo dadkii ballaarnaa ee haatan xukuumadda ku bixisay sidii haatanba loo heli lahaa gargaar caafimaad oo dhameystiran. xubnahani guddigani ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weeraradii argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso ay qayb ka ahaayeen dhaawacyadii xali la qaaday. madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Allah ugu baryay in ay caafimaad degdeg ah uu siiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Abdiraxmaan Ismaan Cumar Yariisow iyo dhammaanba mas'uuliyiintii haatan ku dhaawacmay falkaasi wuxuushnimada ahaa ay geysteen argagixisada, isagoo sidoo kale janna ugu baryay naxariista Allah uu siiyo mas'uuliyiintii haatan ku shiiday qaraxaasi. warbaahinta kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir uu ahaa mid goobta lagu sii diyaariyay. warbaahinta Al-Shabaab oo soo xiganaysa xubno ka tirsan kooxda oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in qaraxaasi loo adeegsaday maada qaraxda oo haatan lagu sii diyaariyay gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir. sarkaal la soo xigtay oo aan la shaacinin magaciisa ayaa sheegay in qaraxu haatanba ku diyaarinayay gudaha xarunta isla markaana loogu talagalay in lagu beegsado wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya James Swan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in cilado farsamo dhacay darteed ay haatanba u qarxi weyday intii uu joogay wakiilka, balse goor dambe ay qaraxu haatanba u halilay saraakiisha maamulka gobolka Banaadir oo halkaasi ku shiriyay. wararka cusub ee in qaraxa haatanba ay diyaarinayaan xarunta oo kala duwan ayaa isburinaya maamulka gobolka Banaadir hadalka ay soo tabiyeen saraakiishooda iyo qaraxa Al-Shabaab ay ku sheeganayso in gudaha ay ka diyaarinaysay, halka maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in haweeney isqarxisay nafteedana ay haligtay. hadalkan Shabaab ayaa u muuqda mid isburinayo ujeedka uu yahay in lagu taageero sheegashada in qaraxaani haatanba la beegsaday James Swan, taasi oo khubarada amniga ku sheegeen isku day weerarka loogu dhigayo mid caalami ah. khubarada amniga ayaa la rumaysan yahay in qaraxaani ay boqoshada Swan ka dhaxaysa kaliya in ay haatanba si kadiis ah ay u kulmaan balse aanan waxba iska gelin. waxaana ugu weyn hadalka Shabaab ee burinayo ee ahaa xaqiiqada ay sheegeen in qaraxu markii hore uu qarx u waayay cilada farsamo haatanba su'aasha la isweydiin karayo waxa ay tahay in waqtiga dambe uu qaraxa dhacay yaa farsamada ka saaray cilada ah. taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa wada diyaarinta sharciga cusub ee isbedelka lagu sameynayo qodobo ka mid ah shuruucda cadeynaysa xuquuqda muwaadinka isla markaana saameyn ku leh shaqada booliiska. saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa qaranjoog news u sheegay in taliska booliiska gobolka ay soo gudbiyeen in la dheereeyo waqtiga maxkamadda la'aanta xabsiga lagu hayn karayo dadka la soo qabto ee gacanta booliiska soo galo inta aan la saarin maxkamadda. dalabka ciidamada booliiska ayaa ah in 48 saacadood aysan ku fileen oo ay u baahan yihiin in la siiyo ugu yaraan 9 cisho oo si baaritaankaasi
loogu sameeyo qofkii laga shakiyay kadibna loo horgeeyay maxkamadda wixii markaasi ka dambeeyo go'aanka maxkamadan lagu sii daayo ama lagu hayo dadka aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in sharcigaani loo gudbin doono golaha wasiirada markii uu soo dhamaado xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre dastuurka dalka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalo ayaa tilmaamayo in qofka muwaadinka ah xabsi lagu sii hayn karin muddo ka badan 48 saacadood iyadoo maxkamad xukunkeedu ku dhicin arintani ayaa taliska booliiska gobolka Banaadir waxay u arkaan in ay aad u yartahay isla markaana aysan qofka ugu dhamaan karin muddo 48 saacadood ayna u baahan yihiin in waqti ku filan baaritaankaasi ku sameeyaan la siiyo haddii arintani ay dhacdo waxay noqonaysaa dhibaato daran oo wajahayso shacabka Soomaaliyeed maadaama ay noqonayso go'aankani gacanka loo geliyo booliiskaasi garsoorkana meesha laga saaro sidoo kale arintani ayaa waxay noqonaysaa in hoosta laga dhigo adeega garsoorka isla markaana la beegsaday xadgudubka xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lama ogo go'aankani uu ku qaadan doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo xubnaha golaha wasiiradiisa sidoo kale lama ogo go'aankani inay ka qaadan doonaan golaha baarlamaanka dalka haddii sharcigani la horgeeyo ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa heegan buuxi geliyay kadib go'aankii uu maamulkaasi xiriirka ugu jiray dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta maamul goboleedkaasi Jubbaland Abdi Hussein oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaciyay in dhammaanba in ciidamada maamulkaasi u diyaar garoobeen ka hortagida falalka uu sheegay in ay maleegayaan cadowga Jubbaland sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in si weyn loo adkeeyay amniga magaalo xeebeedkaasi Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose Abdi Hussein ayaa carabka ku adkeeyay in go'aankoodii ahaa in mas'uuliyadda dowladda aysan tagi karin deegaanada maamulkaasi uu weli sidiisa yahay isla markaana dhaqan geli doono inta ay ka dhacayso doorashada dowlad goboleedkaasi Jubbaland arintani ayaa qayb ka ah dadaalo uu doonayo Axmed Madoobe in uu kaga hor imaado dowladda Soomaaliya oo isku dayayso in ay meesha ka saarto si uu isku bedel uu ka dhaco halkaasi doorashada madaxweynaha iyo midka baarlamaanka Jubbaland ayaa dhici doonto bisha soo socoto Agoosto lamana ogo talaabada xigta ay qaadayso dowladda dhexe maadaama Axmed Madoobe uu kaga qaatay go'aan culus dowladda Mareykanka ayaa ballanqaad cusub oo ka dhan ah al-shabaab u sameysay dowladda Soomaaliya kadib qaraxii Arbacadii ka dhacay xarunta dowladda hoose Xamar safiirka Mareykanka u fadhiyo Muqdisho Donald Yamamoto oo ka hadlaya weerarkaasi ayaa markii hore tacsi u diray ehladii dadkoodii ku dhinteen isagoo dhaawac u rajeeyay caafimaad degdeg ah Donald Yamamoto ayaa sheegay in dowladdiisa cambaaranayso weerarkaasi uu ku tilmaamay mid bahalnimo ah dhanka kale waxa uu carabka ku dhuftay in Mareykanka uu xoojinayo taageerada Soomaaliya isla markaana uu gacan siinayo baabi'inta argagixisada waxaana xaqiijinaya ballanqaadkani xoogan ee haatan garab taaganahay dadka iyo xukuumadda Soomaaliya annagoo gacan ka geysanayno dadaalada wadajirka ah ee haatan lagu doonayo baabi'inta kooxdaasi argagixisada ah dhisida adag dalka iyo dadkiisa u horseedi kar barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan ayuu yiri Yamamoto ugu dambeyntiina waxa uu ammaan iyo bogaadinba u jeediyay ciidamada ammaanka iyo kooxda gurmadka degdega ah ee ka caawiyay dadkii ku waxyeeloobay weeraradii gobolka Banaadir weerarkan ismidaaminta ahaa ayaa waxa sheegtay al-shabaab waxaana ku dhintay ku dhawaad 10 qofood ay ku jiraan gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal heer gobol guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoonka golahaasi ka dalbaday in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo eedeyntii loo jeediyay dowladda Qatar xubnaha guddigaasi ayaa soo jeediyay in la dabagalo warbixintii uu dhawaanba qortay wargeyska New York Times kadib qoraalkaasi ay gudbiyeen gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wargeyskani ka soo baxay dalka Mareykanka oo shaaciyay in Qatar ay ku lug leedahay falalka argagixisnimada ee dalka Soomaaliya waxaana ay sheegtay in ay arimaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyada ay ku lug leedahay dalkaasi Qatar warbixintani oo dhawaanba soo shaabaxday ayaa la sheegay in Qatar ay doonayso in ay ka saarto dalka isku tag Imaaraadka Carabta Soomaaliya Qatar oo kamid ah dalalka taageero dowladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay dhamaanba eedeymahan loo jeediyay sidoo kale waxa ay shaacisay in aysan farigelin arimaha dalka madax bannaan isla markaana ay cid kasta oo sidaasi sameeysa aysan wakiil ka ahayn
arrintaani ayaa waxa ay dhalisay shaki weyn oo soo kala dhex galo Puntland oo ay ku dhawaaqday in baaritaan ay ka sameynayso dilkii Paul Antonia oo ahaa maarayihii shirkadda DP World ee marsada dekedda Boosaaso. markaan ku soo dhawaado wararka caalamka ururka cimilada qaaradda Yurub ayaa taariikh cusub sameynayo mawjadaha kuleelkaasi ay ku dhufteen qaaraddaasi kaasoo saameyn adag ay ku yeelatay malaayiin qof. hawada kulka baxaysa Saxaraha Afrika ayaa la rumaysan yahay in ay sabab u tahay in heerkulku uu sare u kaco. magaalada Paris ayaa Khamiista heerkulku gaaray 42.7 celcelis taasoo jibisay diiwaangelintu ay ugu jirtay kuleelkaasi in ugu badnaa magaalada 40.4 kaasoo dhacay 1947 bishii June. Faransa ayaa diiwaan gelisay maalintii ugu kuleelka badnaa taariikhda dalkaasi iyadoo heerkulku uu gaaray 47 celcelis taasoo horseeday in digniinta kuleelka la gaarsiiyo heerka ugu sarreeya casaanka. Netherlands ayaa sidoo kale Khamiista diiwaan gelisay maalinta ugu kuleelka badnaa ee dalkaasi taariikhda ahaan soo maro iyadoo heerkulku uu gaaray 41.7 celcelis. dalka Jarmalka ayaa sidoo kale diiwaan gelisay maalin cusub kii ugu kuleelka badnaa taariikhdaas dalkaasi heerkulkuna uu gaaray 42.6 celcelis. in badan oo kamid ah dhismooyinka dadweynaha ee Yurub aan lahayn qaboojiye. warbixinta ayaa sheegayso in kaliya 5% guryaha ay leeyihiin qaboojiyo. kuleelka noocan ayaa sidoo kale laga dareemayaa gobolada waqooyi ee Mareykanka iyo koonfurta dalka Canada kaasoo dilay ugu yaraan 9 ruux sida ay sheegayaan wararka ay qorayaan wakaaladaha wararka caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay shalay kantaalo waaweyn iyadoo sheegtay in tallaabadaasi digniin dhab ah loogu dirayo. waxay ku tilmaamtay qabqablayaasha dagaalka ee ula jeedo Kuuriyada Koonfureed. kantaalahani ayaa waxay ku tijaabisay badda Japan gaar ahaan deegaanka dhaca koonfurta badda. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in dalkiisa lagu qasbay inuu sameysto hub xooggan si uu uga hortago halis kasta oo ay soo food saarto amnigiisa. waxaana uu sheegay in tijaabada ay ahayd mid looga bandhigayo hubka casriga ah oo dalkiisa uu sameystay si cadowga loogu digo. Kuuriyada Waqooyi ayaa horay u dhaleecaysay dowladtuskii militariga ah ee bishii la soo dhaafay ee si wada jir ah gobolka ugu sameeyeen Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. intaan ugu ilaaday wararkii u dambeeyay muraha Soomaaliya iyo caalamka warwarka lamid ah intaan ku wada kulmi doono saaxiibada aan jecel lahay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe noo saar gabalka faro si aad ku soo gaaro warkii u dambeeyay. mahadsanid.